waxay ahayd filasho iyo sawir muuq wanaagsan oo in badan oo ka mid ah bulshada magaalada Gaalkacyo u muuqday gaaristeedana kaliya ay ku xiran tahay doorashada musharaxa ballanqaadkiisu soo jiitay indhaha bulshada oo markaasi guuleysta waa warbixin taxana oo aan ku eegayna maxaa ka qabsoomay ballanqaadyadii duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo maamulkiisa Gaalkacyo 2 sano jirsaday 24 bishii Oktoobar sanadkii 2020 ayaa Cabdiraxmaan Sheekh Xasan loo doortay duqa degmada Gaalkacyo kadib isjiijid dheer iyo olole qaatay muddo ku dhow sanad oo lagu dhisay golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo qabaa'ilku ay dhib badan ka soo mareen habka saami qaybsiga iyo doorashada xubnaha golaha deegaanka oo ahaa kuwii ugu horeeyay ee guud ahaan deegaanada Galmudug ee habka saxda ah la marsiiyo dhismahooda wasaaradda arrimaha gudaha Galmudugna ay hormuud u ahayd dhismaha golaha deegaanka Gaalkacyo bulshada deegaanka gobolka qaybo ka mid ah dalka iyo dibadiisa oo ay ku nool yihiin bulshada ku abtirsata degmadan ayaa si aan kala har lahayn u taageeray musharaxii shacabku watay waa Cabdiraxmaan Sheekh Xasan kaas oo ay ku tuhmayeen inuu ku sifaysan yahay qodobada soo socda inuu muddo 2 jeer ka badan soo hogaamiyay maamulka Ceeldibir oo deegaanada gobolkan kaga duwan naqshada dhisme ee magaalada iyo habka maamulkeeda ee bulshada balse ay xusid mudan tahay in shaxda magaaladaasi uu 40 sano ka hor jeexay injineer Axmed Timajile kana dhaadhiciyay dadka deegaanka ilaashiga qorshahan magaaladu ay ku dhisan tahay taas oo noqotay mid ay wada ilaashadaan bulshada deegaanka oo aan maamulka ku xirnayn 2 inuu yahay nin ahludiin ah kana soo jeeda qoys ka mid ah culimada budhiga oo ah kuwa loogu hirto cilmiga diiniga ah sidaasna uu noqon doono mid dadku ay u siman yihiin kana dheer aragtiyada siyaasadeed iyo kooxaysiga diiniga ah 3 inuu yahay nin dhalinyaro ah oo la falgali kara cid kasta oo ay ku xiran tahay danta dadka iyo deegaankan 4 inuu yahay shakhsi markaasi aysan dul hoganayn arrimaha musuq maasuq maamul iyo bulsho intii uu ahaa kaadirka Ceeldibir qodobadaas iyo kuwa kale waxay ahaayeen kuwa ka saaciday in shacabku ay ku taageeraan cod aqli iyo calaf isla markaana ay ugu yeeraan hogaamiyaha shacabku doonayaan halka kuwa kursiga kula tartamayay loo xaglinayay inay ka dhex yimaadeen maamulkii hore ee degmada iyo madaxtooyada Galmudug oo la aaminsanaa inay jaabka ku ridan doonaan matalaada degmadan guusha Cabdiraxmaan Sheekh Xasan kadib bulshada Gaalkacyo waxa uu sawirnaa kala bar muddo xileedkiisa Gaalkacyo oo cagaaran iftiimaysa laamiye isdhaafaya iyo bulsho midaysan aragti ahaan iyo ehel ahaan haddaba maxaa ka dhaqan galay qorshahaasi la soco warbixinteena xigta midaan